maxay tahay farqiga u dhaxeeyo maamul goboleedka Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya soo dhawaad asxaabay muuqaalka share iyo like page-kana follow inoo dhahdii aan ugu cusub tahay waayahay tan iyo markii uu soo laabtay madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu cilaamiyay dagaal in uu la galayo kooxaha argagixisada ah ee dalka ku sugan xasan doorashadii labaad markii uu ku guuleystay isla markiiba dagaal ayuu cilaamiyay oo kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ee koonfurta Soomaaliya ku xoogan in uu ka saari doono inta uu joogo dhulka ay haystaan oo ay ka haystaan jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya haddaba dagaalkii wuxuu ka bilowday gobolka Hiiraan kooxda argagixisada ah oo xasuuqday dad shacab ah oo reer Hiiraan ah oo maato iyo dad waayeela isugu jiray baabuur saarnay habeen madow ku gubtay halkaas caradii ka dhalatay oo shacabkii hubka intay qaateen ayaa halkaas dagaal bulka yiri dagaalkaas marka waxa bilaabay shacabka ayaa bilaabay reer Hiiraan ayaa bilaabay qaasatan bariga Hiiraan dadka dego ayaa dagaalkaas bilaabay caradii ay ka caroodeen nin nabadoon Buurdina looga dilay iyo ilmihii iyo maatadii ku xigtay oo deegaanka afar idood oo shabaabka ay ku xasuuqeen ku gubeen ayay shacabkaasi u xanaaqeen u kaceen halkaasi waxa kula daartay maamulkii markaas oo asna laftigiis meel wax ka bilaaban la'aayo Cali Jeeto hogaaminayay oo gobolkaas ayaa asna kula daartay dawladdiina waa kula soo daartay dagaalku waa balaartay waxaa lagu qasbay kooxaha argagixisada ah inay iskaga baxaan deegaanada bariga Hiiraan oo ay degaan beesha Hawaadle si qasab ah oo awood ah ayaa looga saaray halkaas dagaalkaasi wuxuu ku fiday gobolka Shabeellaha Dhexe beeshii Hawaadle macawsleeydii waxay u gudbeen deegaanadii Shabeellaha Dhexe meelo badan oo magaalooyin badan iyo dhul badan ayay wax ka xoreeyeen dagaalkii waxaa ku dhiirnaaday qabaa'ilkii kaleento oo Soomaaliyeed hubkii ayaa la wada qaatay maadaama la arkay Hawaadle cashiradii u dhigay kooxda argagixisada ah shacabkii kaleento waa ay ku dhiirnaadeen sida Shabeellaha Dhexe mudug iyo galgaduud dadkii deganay dagaal ayaa lala galay shacabku waa caabanay dawladdu way gar istaagtay meel badan dawladdu way ka dagaalantay oo madda firayno way gar istaagtay maxaa dhacay ka bacdi dagaalkii in uu joogsado deegaano badan oo kooxda argagixisada ah laga saaray in ay dib ugu soo laabtaan oo ay gacanta ku dhigaan meelaha qaarna weli ma aysan qabsan meelo badanna way qabsadeen halkaas dagaalkii soo marayo ayaa misana haddana waxaa la yidhi waxaa la galayaa dagaalka wejigiisii labaad isla gobolka Hiiraan ayuu ka bilowday beeshii Hawaadle ayaa bilowday meel kaleento oo hadda oo ka dhacayo dagaalkii ma jirto haddaba xasan sheekh marka dagaalkii uu cilaamiyay 3 sano ka hor maxaa natiijo ah oo laga gaaray 3 sano ka hor dagaalkii argagixisada lala galay deegaanadii laga saaray inay qaarkood dib ugu soo laabtaan inay qaarkood weli hadda ay haminayaan sida gobolka Hiiraan oo ah deegaanadii ugu horreeyay ee laga saaray kooxda argagixisada ah hadda waxay xabadda ka dhacaysaa la isku hor fadhiyaa barigii laga saaray shabaabka 3 sano ka hor oo wabiga laga tilaabiyay ayay hadda inta wabiga ka soo talaabeen ayay hadda waxay ka dagaalamayaan inta u dhaxayso degmada Buulabirde iyo degmada Halgan inta u dhaxayso ayay ka dagaalamayaan kooxda argagixisada ah intaas maxaa keenay ayagoo ku sii daba yar tahay ayaa nimankan laga haray dawladdaana ballanka ka baxday xasan sheekhana ballan ka baxay shacabku waa kaceen shacabku waa caaboonaayeen war dhiig shabaab xaggee joogaa ayay lahaayeen shacabka waagaasi laakiin dawladdii ayaa waxay gashay barnaamijyo kaleento howlo kaleento ayay gashay waayahay Puntland haddii aan u jeesano xaggeeda Puntland waxay ayagana cilaamiyeen in ay la dirirayaan kooxda ayagana argagixisada ah ee buuraha calmiskaad ee bariga
puntland ku dhuumaaleysanaya in ku dhow 10 sano puntland hal mar ayay istaagtay guulo waaweyn ayay ka soo hooyday haddana waxaa u muuqato in puntland ay yacni ka soo faraxalan rabto kooxdaasi daacish la yidhaahdo haddaba bal muuqaalkan yar waxaa ku tusaale ku ah muuqaalkan yar barfiiriya waxaa loogu tagay godadkoodii meel kastoo markii laga saaro waxaa laga saaro godad badan ayaa laga saara saldhigyo badan ayaa laga saara kooxdaasi hadda marka fiiri kan waa muuqaalkii ugu dambeeyey waa godadkii ugu dambeeyey ee laga saarayo kooxda daacish kuwa rugahoodi waxaasi ku jiraan maxaasaa la geli jira godkii jiifka waa kan qolkii jiifka hooyadin was wara kala jiimar boohday haddaba waxay daliil cad u tahay marka in ay kooxdaasi jabtay kooxdii daacish ahayd weliba xataa daacish iyo shabaab markii laisbarbar dhigo waxaa khatar badan daacish nimanka la yidhaahdo kuwa ayaa khatar badan oo khatar weyn puntland marka waxay u eg tahay marka in dagaalkaasi ay soo gabagabaynayso kooxdaasna ay ka sifaynayso buurahaasi waa dhul buuraley ah dhulka ay ku jiraan halka koonfurta soomaaliya iyo dowladda federaalka ah wiilal maalin walba soo weerar tagayo ee u maaran la'dahay puntlandna godadkoodii ayay ugu gashay haddaba muxuu yahaa differencega u dhexeeya marka puntland iyo dowladda federaalka soomaaliya waa su'aal u baahan in la isweydiiyo xaqiiqatan su'aal u baahan in la isweydiiyo weeyaan puntland oo maamul goboleed ah iyo dowladdii federaalka soomaaliya maxay tahay differencega u dhexeeyo argagixisada dagaalkooda dagaalka lagula jiro argagixisada maxay ku kala duwan yihiin labadaasi puntland oo maamul goboleed ah iyo dowladda federaalka soomaaliya puntland guulo weyn ayay ka soo hoyday daacish way ka takhalusi rabtaa dhowaan oo qarka ayay u saaran tahay in ay soo afjarta dagaalkaasi halka dagaalkii shabaab ee koonfurta soomaaliya dowladda federaalka ee la gashay 1 iyo 2 uusa joogin oo nimanka ayaga ay weerar yihiin haddaba ma puntland baa ka awood badan dowladda federaalka mase dagaalka ayaa loo kala daacadsan yahay aniga waxaan ku fasiri lahay dagaalka ayaa loo kala daacadsan yahay puntland dagaalka daacad ayay ka tahay si niyo ah ayay u galeen oo aan ka soo noqosho lahayn oo aan tafraaruq lahayn ayay u galeen mar haddii marka bahasha uu koola la yahay wax derbi hadduu kaa hor yimaado xataa waad jiiraysaa laakiin dhankan dowladda federaalka soomaaliya iyo qabaa'ilkii kacayba waxaad moodaa in dagaalka aan daacad laga ahayn halka beesha gobolka hiiraan degdeg keliya ay daacad ka tahay dagaalka ilaa hadda ay dagaal ay wado ilaa iyo hadda ayay dagaal wadaan haddaba marka rag badanna way dhammaadeen rag badan way ku dhammaadeen dagaalka argagixisada shabaab lagula jiray 3 sano ugu dambeysay rag badan ayaa dhintay waxa natiijada lagama gaarin xaggaas xaraq dheeraa la dhaafi la'yahay intana waxaa la dhaafi la'yahay galcad baya bakool warkooda iska daaba ha sheegin iyo jubbooyinka xagga noo dhig meelihii dagaalka oo ka bilowday oo yacni shacabka ka kacay baa weli faanoola fara kama qodna ah haddaba marka daawade sideed marka adiga u aragtaa puntland oo soo afjari rabta kooxdii daacish dhowaanna dagaal ku bilowday iyo dagaal 3 sano soo jiitamaya oo dowladdii federaalka ahaydna ay dhaqaajin la'dahay xaggee sarta ka qurunsan tahay noo sheegi kartaa daawada adiga halka bahasha ay iska qaban la'dahay ay ka qariban tahay jawaabtaadu waa noo muhiim qaybta commentiga inoogu soo bixi
والسلام يا دمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.